kulankani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda beeraha waraabka dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka soo qayb galay kambaniyada iyo NGO-da dhanka beeraha ka howlgala deegaanada dawlad goboleedka Hirshabelle kulanku markuu soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka beeraha waraabka dawlad goboleedka Hirshabelle Xasan Axmed Mudee wuxuuna ka hadlay muhiimadda kulanka ay isku yimaadeen waxaan maanta la kulannay NGO-yada iyo kambaniyada ka howlgala Hirshabelle si aan usu dhaafsano macluumaad ku saabsan xilliga guga ee fooda nagu soo haya hadduu Ilaahay yiraahdo subxaanahu wa tacaala NGO-yadana ay u bartaan xafiiska wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Hirshabelle oo aan maanta ku kulmayno shirkeen aan ku qabsanay isbarasho kadib NGO-yada waxaan uga mahad celinaynaa sida saraaxada leh doodiina dhaxmartay faahfaahin ay uga bixiyeen wasaaradana ay u soo dhaweeyeen kana tarjumeen wicitaankii ay wacday wasaaradda si saraaxad ugu soo jawaabeen wasiirka dalkiisa sii wata ayaa u mahad celiyay hay'adihii iyo dadkii ka soo qayb galay kulanka waxaan ka mahad celinaynaa anahay wasaaradda beeraha iyo waraabka NGO-yada iyo kambaniyada halkaan maanta aan isugu yeernay sida dhaganuglaanta ah iyo dawlad jaceylka ay muujiyeen ay ugu yimaadeen wasaaradda si aan isu dhaafsano howlaha na hor yaalla intaa kadib kulankeena wuxuu ahaa maanta kulankii koowaad oo wasaaradda ay u qabato kambaniyada iyo NGO-yada ka howlgala Hirshabelle ee dhanka beeraha waxaan isdhaafsanay macluumaad aad qaali u ah NGO walba waxaa profilkiisa ugu jira shaqooyinka uu qabanayo oo dhanka beeraha anaga waxaa naga quseeyay NGO-ga iyo kambanigaba dhanka beeraha profilkiisa waxa ugu jiro iyo saan uslo shaqay lahayd Abubakar Maxamed Baadle Radio TV qaranka Soomaaliyeed xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar